inaad noqotaa hogaamiye ay dadka inta badan jecel yihiin ma ahan wax fudud, laakiin waxa ay ku xiran tahay hadba waxqabadka aad la timaado. Inaad noqotaa hogaamiye waa wax sahlan, laakiin inaad dadka qulubtooda soo jiidataa ma ahan wax fudud. Hogaamiyahan maanta idiin soo wadaa waa hogaamiyaha inta badan shacabkeedu ay jecel yihiin, sababtoo ah waxa ay kor u qaaday kaabayaasha dhaqaalaha, waxayna waddanka ka dhigtay mid ka mid ah wadamada adduunka ugu hodansan. Haddii aad doonayso sheekada min bilow ilaa ay dhammaad aad nala daawato, fadlan laagtaan muuqaalkan si uu muuqaalkani saaxiibo badan u gaaro, una sheergaree asxaabtaada Facebooka si aan u helno saaxiibo adigoo kale ah. Angela Merkel, oo loo yaqaano Kansna, waxay dhalatay 17 Julaay sanadii 1954. Waa siyaasi Jarmal ah oo soo noqotay jagada Jarmalka sanadii 2005. Waxay soo noqotay hogaamiyihii mucaaradka sanadihii 2002 ilaa iyo sanadii 2005, iyo hogaamiyihii Christian Democrat Union CDU laga bilaabo 2000 ilaa iyo sanadii 2018. Waa xubin ka mid ah Christian Democrat Union. Merkel waa haweeneydii ugu horreysay ee noqotay jagada Jarmalka. Waxaa si aad loogu sifeeyey inay tahay hogaamiyaha dhabta ee Midowga Yurub. Haweeneyda ugu awoodda badan adduunka, iyo falanqeeyaal badan ayaa ku tilmaamay inay leedahay howlkarnimo hogaamineed. Taasi ayaana keentay inay ka mid noqoto dadka ugu saameynta badan adduunka. Merkel waxay ku dhalatay magaalada Hamburg oo markaa Jarmalka galbeed ka mid ahayd. Waxay u guurtay bariga Jarmalka iyadoo ilmo yara, markii aabaheed oo ah wadaad dadka diimaha bara oo shaqo ka helay magaalada Berlebeck. Waxay noqotay dhakhtar ku takhasusay kemistriga sanadii 1986, waxayna ku shaqaynaysay saynisyahan cilmi baaris ah ilaa iyo sanadii 1989. Merkel waxay siyaasadda soo gashay wixii ka dambeeyay kacdoonkii sanadii 1989. Waxay si kooban ugu shaqaysay ku-xigeenka afhayeenkii dowladdii ugu horreysay ee si dimuqraadi ah loo soo doortay ee Jarmalka ee hogaaminayay Lothar de Maizière. Midoogii Jarmalkii kadib sanadii 1990, Merkel waxaa loo doortay xildhibaanka ee gobolka Mecklenburg-Vorpommern. Sidoo kale dowladdii uu hogaaminayay Helmut Kohl, Merkel waxaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo dhalinyarada sanadii 1991. Kadib waxay noqotay wasiirka deegaanka, ilaalinta dabeecadda iyo nukleerka sanadii 1994. Sanadii 1998 xisbiga CDU ayaa ku guuldareystay doorashadii federaalka. Taa beddelkeeda Merkel waxaa loo doortay inay noqoto xogayaha guud ee CDU. Ka hor inta aynan noqon haweeneydii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqota xisbiga. 2 sano kadib fadeexadii tabarucaadda ee meesha ka saartay Wolfgang Schäuble, waxay ahayd hogaamiyihii mucaaradka sanadihii 2002 ilaa iyo sanadii 2005. Kadib doorashadii federaalka ee sanadii 2005, Merkel waxaa loo magacaabay inay kala wareegto Gerhard Schröder jagada Jarmalka, iyadoo hogaaminayso isbahaysi weyn oo ka kooban CDU, xisbigeeda Bavaria ee Christian Social Union CSU, iyo xisbiga Social Democratic Party SPD. Merkel waa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto jagada, iyo sidoo kale waa haweeneydii ugu horreysay tan iyo markii ay midoobeen bariga Jarmalka iyo galbeedka Jarmalka. Doorashadii federaalka ee sanadii 2009, CDU waxay heshay saamiga ugu badan ee codbixinta, waxayna Merkel awood u yeelatay inay samaysato dowlad wadaaga xisbiga Free Democratic Party FDP. Doorashadii federaalka ee sanadii 2013, Merkel iyo xisbigeeda waxay ku guuleysatay cod caqliyeed leh oo ah 41% codadkii la bixiyay. Waxayna samaysay isbahaysi weyn oo labaad oo ay la yeelato SPD kadib markii ay FDP ay lumisay dhammaan matalaadii xildhibaannimo. Doorashadii federaalka ee sanadii 2017, Angela Merkel waxay u horseeday CDU inay noqoto xisbiga ugu weyn markii afaraad, maadaama ay 4 jeer isku xiga ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday waddanka Jarmalka. 14 Maars sanadii 2018, Angela Merkel waxaa mar kale loo dhaariyay xilka kansarnimo ee waddanka Jarmalka, taa oo inta badan ay soo dhaweeyeen qaxootiga ku nool waddankan, maadaama mucaaradka ay ku xakliyaan inay u janjeedho dhanka iyo qaxootiga. Sanadii 2007, Angela Merkel waxay noqotay madaxweynihii Golaha Yurub, waxayna door muhiim ah ka ciyaartay gorgortankii heshiiskii Lisbon iyo baaqii Berlin. Arrinta kale ee lagu xasuusto intii ay xilka haysay waxaa ka mid ah maareyntii dhibaatadii dhaqaale ee adduunka iyo dhibaatadii deynta Yurub. Sanadii 2008, madaxweynihii xilliga Angela Merkel iyo dowladaha Yurub waxay ka wada xaajoodeen xirmo dhiirigelin ah oo ku saabsan sidii lagu xoojin lahaa qarashka kaabayaasha iyo maalgashiga dadweynaha si looga hortago inay dhacdo dhibaato bini'aadanimo.
Merkel waxay diiradda saartay horumarinta tamarta mustaqbalka iyadoo raadinaysa in laga takhaluso awoodda nukleerka ee Jarmalka, in la yareeyo qiiqa gaaska ee lagu sii daynayo hawada, iyo in la kordhiyo ilaha tamarta ee la cusboonaysiin karo. Dib u habeyntii daryeelka caafimaadka iyo dhowaanahanba jawaab celinta dowladdeeda ee ku aadan dhibaatooyinka muhaajiriinta ee sanadii 2010 iyo Covid-19 oo ku faafaya Jarmalka ayaa ahaa arrimaha ugu waaweyn inta ay xilka haysay. Waxay soo noqotay hogaamiyaha sare oo ka tirsan G7 tan iyo sanadii 2014 iyo ka hor sanadii 2011 ilaa iyo sanadii 2012. Sanadkii 2014 waxay noqotay hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee xilka haya ee Midowga Yurub. Bishii Oktoobar sanadii 2018, Angela Merkel waxay ku dhawaaqday inay u istaagi doonto hogaaminta CDU shirweynaha xisbiga. Waxay kaloo intaa raacisay in ay dib isu soo sharixi doonin marka la gaaro dhammaadka sanadkani aynu ku jirno oo ah xilliga uu ku egyahay muddaxileedkeeda. Waxyaabaha lagu xasuusan doono Angela Merkel ayaa waxaa ka mid ah toddobaadkii hore ayaa shir isugu yeertay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Jarmalka. Waxay u soo jeedisay talo ah in bandow adag la geliyo 1 bisha Abriil ilaa iyo 5 oo ah maalmo fasax ah oo loo yaqaano Osterferien. Saacado kadib waxaa social media ku soo batay dhaleecooyin loo jeedinayo Angela Merkel, waxayna u soo jeediyeen inay ka laabato go'aankeeda ah in bandow adag la galo. Ugu dambeyn, Angela Merkel, haweeneyda lagu naaneyso haweeneyda birta ah, waxay mar kale shir la qaadatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, waxayna ka codsatay inay ka laabatay go'aankeedii hore, iyadoona saxaafadda horteeda ka qiratay in go'aankaasi ay iyadu lahayd, shacabkana ay weydiisanayso cafis. Marka aynu eegno xiriirada ay samaysay nolosheeda, sanadii 1977 markay ahayd 23 jir, Angela Merkel waxay guursatay arday dhigta dugsiga cilmiga fiisigiska oo lagu magacaabo Ulrich Merkel oo dhashay sanadii 1953. Waxay qaadatay magaciisa, taasoo ah dhaqan u yaala reer galbeedka, maxaa yeelay gabadha marka ay guursato waxay qaadanaysaa magaca ninkeeda. Laakiin 5 sano kadib guurkooda waxa uu ku soo dhammaaday furiin sanadii 1982. Ninkeeda labaad iyo kan hadda waa brofesor ku takhasusay maadada kemistriga, waxaana lagu magacaabaa Joachim Sauer oo inta badan ah mid aan warbaahinta ka soo muuqan. Markii u horreysay waxay kulmeen sanadii 1981, waxay noqdeen lamaane, kadibna waxay si gaar ah isu guursadeen 30 Diseembar sanadii 1998. Wax caruura maysan isku dhalin, laakiin ninkeeda Joachim Sauer ayaa 2 wiil oo qaangaar ah ay u dhashay xaas kale oo hore u soo guursaday. Merkel waa qof jecel kubadda cagta, waxaana lagu yaqaanay inay dhegaysato ciyaaraha inta ay ku jirto xafiiskeeda iyo inay ka soo qayb gasho ciyaaraha xulka qaranka iyada oo ku shaqaynaysa qaabkeeda rasmiga ah. Merkel waxay sheegtay in filimka ay ugu jeceshahay uu yahay The Legend of Paul and Paula oo ah filim Jarmalkii bariga oo la sii daayay sanadii 1973.